بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنيgu معلم محمد إبراهيم halkan waxaan kasii wadanaynaa casharadii taxanaha inoo ahaa aan ku baranayna softwareka la magac baxay Tally ERP9 softwarekan isticmaalaan kambaniyada marka waxaan rabnaa casharadii taxanaha inaan sii wadano in muddo yar ayaan kala maqnayn imtixaamaad baa ii socday marka falilahi alxamdu imtixaamaadku way dhammaadeen marka waxaan rabnaa casharadii taxanaha inaan sii wadano aan ku baranayno softwarekan marka waxaan maanta loo diray muxuu ahaa waxaan la yiri prepare diyaari balance sheetkan marka balance sheetku wax saas ma balance sheetku waxa waaye waxa uu ku sheegayaa waa statement ku sheegaya mataqaana position of the business ganacsigaaga ama kambanigaaga meesha uu marayo inuu mataqaana sida uu yahay xaaladda ku sheegaya but laakiin inta balance sheetka mataqaana muxuu ahaa la diyaarin waxa ka horeeya laba statement ayaa ka horeeya statement loo yaqaan trading account iyo statement loo yaqaan profit and loss account oo profit and loss account dadka qaar wuxuu yaqaanin income statement mataqaana marka muxuu ahaa laakiin muxuu ahaa trading account iyo profit and loss account-ga hore ayaga u soo qaadanay oo iyagu mataqaana kala go'an laakiin waxaan rabaa hadda tan waxaan loo diray balance sheet-ka loo diray marka balance sheet-ka casharadan kan aan qaadano kan ku xiga wuxuu noqon doonaa insha Allah profit and loss account dana waxa ku xigi doona trading account ayaa ku xigin doona hadawna mataqaana sidaas ayaan soo wadanaa casharadeeni marka maanta waxaan loo diray balance sheet-ka ayaan loo diray waxaan la yiri prepare samee balance sheet samee value of Farmaajo from the following particular on 31/12/2020 Farmaajo company ama baan loo diray oo ah particular mataqaana waxa la yiri muxuu ahaa xisaabi balance sheet-kan marka balance sheet-ka aniga kan waa problemka solution ahaan waa ku xaliyay warka oo imswarka ku xaliyay oo waa kan waxay soo baxay 8,000 ay soo baxay wixii capital xaqana dhigay wixii asadan xaqana yimaadeen qaybta balance sheet-ka laakiin marka hadda tan mataqaana su'aashan loo diray in la weydiiyay wixii mataqaana wixii asada iyo wixii mataqaana liability كل واسكو دح قصين yihiin oo capital wax muxuu ahaa liability set ka imaanaysa balance sheet ka debtors waxay imaanaysa qaybta balance sheet waxay imaanaysa qaybta asset ka imaanaysa credit ka marka wixii waa isku dhex qasay marka waxa loo baahan yahay inaan kala saarno wixii liability ah wixii liability ga tagaan wixii balance sheet ka qaybta asset kan geyno marka saas ayaan loo diray marka waxaan rabnaa inaan sameeyno marka sida loogu sameeyo mataqaana softwareka practical ahaan ayaan isla baranaynaa oo isla fiirinaynaa already waan asaasay anigu company-ga waa asaasay company-ga waxa la dhahaa Farmaajo company 1 ayaa la dhahaa oo 2019 to 31 muxuu ahaa March 2020 ayaan xisaabinayaa marka already anigu waa sameeyay company-ga loo sameeyo hadii aad aqoon casharada ka horeeyay ayaan ku dhigay sida company-ga loo asaaso oo mataqaana muxuu ahaa casharada hore diiwaad marka su'aasha ayaan galeynaa su'aasha waxaan yiri waxa ugu horeysa capital oo ah lacagtu mataqaana capitalka ah waxay ahayd oo haystay 48,000 ayuu ahaa 48,000 bay ahayd inta tan xaggan aad tagaysaa marka mataqaana software-ku joogto tan waxaad tagaysaa meesha aad tagaysaa account info dan waxaad tagaysaa meesha ku qoran tahay ledger dan waxaa leedahay meeshan ku qortay multiple ledger qaybta waxaad tagaysaa credit ayaa tagaysaa meesha ku qoran tahay CR ah C rate waa ku dhufanaysaa dan meeshan ay ku qorantay and the group qaybta all items waxa leedahay enter leedahay dan waxa ku qoraysaa capital lacagtii capital dan enter leedahay capital maxay hoos tagaysaa under waxay hoos tagtaa capital account ayay hoos tagtaa lacagtu maxay ahayd qiimaheeda 48,000 bay ahayd lacagta capitalkan haysanay dan enter leedahay oo CR bi soo qoray CR yani waxa waaye balance sheet qaybta credit ka tagaysaa qaybta credit maxay noqonaysaa liability qaybta liability ayay tagaysaa capital maxaa ku xiga debtors oo ah 12,000 dan debtors maxay hoos tagaysaa sundry debtors ay hoos tagaysaa oo ah 12,000 oo iyada fi debit side bi soo qoray oo yani waxa way balance sheet ka qaybta asset ka ay tagaysaa oo debit ahaan waaye maxaa ku xiga debtors maxaa ku xiga creditors deynta lagu leeyahay oo ah 28,000 creditors maxay hoos tagaysaa sundry creditors ayay hoos tagaysaa oo waxay lacagtu 28,000 enter dan waxaa leenahay furniture inaa qalab furniture soo iibsato qiimaha alaabta furniture gaarayay 12,000
حالة furniture furniture محي هوستجيسا fixed asset أي هوستجيسا أو 12 قيمة asset كي تجيسا maxaa ku xiga net profit haddaan isla faahfaahin net profit waxaas ma waa maxay qaybta profit and loss accountiga or ama income statementga markaad samaynayso waxa soo baxaya net profit or net loss marka net profitka wax ama capitalka ayaad ku daraysaa hadday net loss imaatana capitalka ayaa ka goynaysa laakiin hadda waa net profit oo waa ku daraynaa marka waa 4,000 waaye halkan waxaa ku qoraysaa net profit capital account geysta oo ahayd 4,000 bay ahayd maxaa ku xiga nadurka qaybta waa maxay machinery oo machiinka soo iibsatay qiimihiisu muxuu tagay 10,000 machinery muxuu istagaya fixed asset ayuu istagaya oo 10,000 machinery maxaa ku xiga cash oo 13,000 cash in hand ayaa leedahay cash in hand wuxuu isagaysaa cash in hand ayaduna hoos tagaysaa oo 13,000 maxaa cash hand wuxuu xiga investment ina maalgashi mise lacag gaaraysa 19,000 investment maxay hoos tagaysaa investment ayay hoos tagaysaa investment account hoos oo lacagta maxay ahayd 19,000 bilacagta ahayd then maxaa ku xiga investment waxaa ku xiga closing stock waa maxay remain of the good last year waa alaabtii sanadka hore hartay meherada ku hartay qiimaheedu muxuu gaaray 3,000 closing stock maxay noqonaysaa current asset ayay noqonaysaa oo ahayd 3,000 then maxaa ku xiga closing stock waxaa ku xiga fixed deposit oo 11,000 fixed deposit maxay hoos tagaysaa deposit fixed bay hoos tagaysaa oo asset qiimada wuxuu ahaa 11,000 dan waa dhameeyey safe ayaa leedahay inter ayaa leedahay safe marka ani problemka waa kan waay problemka waa loo diray solution ahaanna waxa ay soo baxay qaybta saan ayay u soo baxay balance sheetka of Farmaajo as on 31 December 2020 marka capital and liability waxa yimi laba shay ayaa yimi عليها capital account iyo inaad ku dirtay net profit ka 4,000 total waxay noqdeen 52,000 iyo qaybtana creditors oo tan oo creditors la deynta lagu leeyahay company-ga wuxuu noqday 28,000 marka total labadaas ku dar waxay noqdeen 8,000 noqdeen 80,000 maxaa asset inta ayaa timi deep trades baa yimi investment muxuu ahaa furniture machinery cash muxuu ahaa closing stock fixed deposit inta ayaa yimi inta account ayaa yimi oo intaan waxay noqdeen 8,000 ayay noqdeen marka waxa raba balance sheet marka waxa raba mataqaana muxuu ahaa taaliga inuu si practical ahaan sidan oo kale inuu isna siiyo oo awal mataqaana muxuu problemkan waa isku dhex jira muxuu ahaa particular wixii capital and liability lama kala saarin wixii asset lama kala saarin total amount-gana mataqaana meesha igama qorna waxaan rabaa software-ka inuu ii sheego dan waxaad tagaysaa escape ayaa leedahay 2 jeer dan waxaad lacala hadda fiirada ku soo profit and loss account haddaan tago fiiri waa zero wax mataqaana profit and loss account la xiriira oo problemka ma jirin oo wuxuu leeyahay waa input bultusaya inuu faarqtay laakiin balance sheet ayaa tagaysaa oo problemka qaadan wuxuu la xiriira balance sheet ka la xiriira dan waxaad leedahay F1 detail ayaa leedahay dan ato fiiri saacada soo arkaynay waa tan fiiri saacada soo arkaynay saan mataqaana ka sameeyay waa kan fiiri waa 80,000 hakana 80,000 capital and liability waxa yimi capital iyo net profit ka labadan isku daray iyo creditors saddexda shay kaliya ayaa yimi software kale loo sheegay waa ka wuxuu yiri muxuu ahaa qaybta liability ga waa xaq u qorat mujida qaybta liability ga waxa yimi capital ka oo noqday 52,000 of 52,000 waa maxay waa capital iyo net profit ka labadan isku daray maxay noqdeen 52,000 iyo current liability ga oo noqotay
28,000 markii 52,000 28,000 lagu daro waxay noqonaysaa 80,000 ay noqonaysaa 8,000 qaybta asadkan maxaa yimi marka soo asadku uu noo kala saaray laakiin hadda xagga ma kala saarin software wuxuu ku fiican yahay fiiri hadda tan wixii fixed asad garamayo wixii current asad garamayo wixii current liability ma garan karo oo only solution ayaa sameeyay laakiin software wuxuu ku sahlaya wuxuu ku sheegaya wixii fixed asad uu ku sheegaya wixii investment ayuu ku sheegaya wixii current asad uu ku sheegaya wixii fixed asad waxa haysataa furniture iyo machinery waa 12 kun lagu daray 10 kun xas ku noqonaya 22 kun iyo investment maalgashi samaysa 19 kun then current asset kan waxa haysatay closing stock deposit asset iyo sundry debtors iyo cash in hand iyo closing stock in kuwaasna waxay noqdeen 39,000 kun marka 39 kun lagu daro 19 kun 22 kun waxay noqonayaan 80,000 waa kan state kun must be waa inay mataqaana balance sheetku liability iyo asset waa inay mataqaana khasab waa inay mataqaana same noqdaan oo xaggan state ku soo baxa kan state ku soo baxda hadii different jiro micni waxa waa waxba khaldan laakiin hadda casharkan maanta ayuu ku saabsanaanayaa oo waxaan loo diray muxuu ahaa farmaajo of the following particular waxaan loo diray balance sheetkan ayaan loo diray balance sheetkan waan soo xalinay insha Allah casharada ku xigta ku kulmi doono assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh